baarlamaanka dalka Turkiga ayaa meel mariyay sharciga oggolaanshaha in dalka Sweden uu ku biiri karo isbahaysiga military ee NATO. waxay ahayd sanadkii 2022 markii ay dowladda waddanka Sweden gudbisay codsigeedii ahaa inay doonayso ku biiritaanka isbahaysiga military ee NATO, taas oo ay dowladaha Turkiga iyo Hungary aysan u codayn. dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay dowladda Sweden inay martigeliso isla markaana gabaad siiso xubno ka tirsan ururada ay dowladda Turkigu u aragto inay yihiin urur argagixiso ah, gaar ahaan kooxaha Kurdishka ah ee ka soo horjeeda dowladda waddanka Turkiga. dowladaha Sweden iyo Finland ayaa codsiyadooda ku biirista isbahaysiga military ee NATO gudbiyay sanadkii 2022 kadib markii ay cabsi xoog leh soo food saartay sababo la xiriira dagaalka u dhexeeya wadamada Ukraine iyo Ruushka. dowladda Finland ayaa heshay oggolaanshaha dhammaan wadamada ka tirsan isbahaysiga military ee NATO isla markaana bishii Abriil ee sanadkii 2023 ku biirtay isbahaysiga NATO. ra'iisul wasaaraha dalka Sweden iyo xubnaha guud ee isbahaysiga military ee NATO ayaa ka mid ah madax dhowr oo soo dhaweeyay go'aanka baarlamaanka waddanka Turkiga oo 287 ka mid ah xubnaha baarlamaanka Turkiga ay siiyeen oggolaanshahooda halka ay diideen 55 kale oo ka tirsan xubnaha waddanka baarlamaanka dalka Turkiga. Turkiga oo ka mid ah wadamada 31 ee ka tirsan isbahaysiga military ee NATO ayaa leh awoodda oggolaanshaha ama diidmada la xiriirta wadamada ku soo biiri kara isbahaysiga. waxaana xusid mudan in bishii Juun ay dowladda waddanka Sweden ay soo saartay sharciyo cusub oo ay kaga hortagayso kooxaha argagixisada ah isla markaana jawaab u ah tabashadii dowladda waddanka Turkiga. maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu saxiixo sharciga oggolaanshaha ee ay baarlamaanka dalka Turkigu meel mariyeen, balse waxaa sidoo kale xusid mudan in weli dowladda waddanka Sweden ay u baahan tahay oggolaanshaha dowladda waddanka Hungary oo xiriirka kala dhexeeya uu yahay mid aad u hooseeya. waxa warbixintan la socodsiinayay anigu Maxamed Saciid Saxaaf, waana mid ka mid ah warbixinadeena ku soo qaadana barnaamijkeena wararka maanta ee aad kala socotaan telefishinka Global Somali TV. intaan ku kulmayno warbixinta xigta waa anigii guud ahaan bahda barnaamijka wararka maanta oo idinkaga tagay meel baad caalamka joogtaan sidaas iyo